kadib waraysi uu bixiyey madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamuud Cumar oo uu ku eedeeyay madaxii hore ee sirdoonka Itoobiya Master Katajow ayaa waxaa hadda ka jawaabay xisbiga talada haya ee dalka Itoobiya. madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar ayaa sheegay in dhibaatooyinka uu madaxii hore ee sirdoonka dalka Itoobiya ku hayay deegaanka ay uga dacwoodeen xisbiga talada haya. haddaba BBC laanteeda afka Amxaariga ayaa waxaa waraysi siiyey gudoomiye ku-xigeenka xisbiga TPLF ahna madaxa xafiiska xarunta dhexe ee xisbiga talada haya Marwo Fatlawarqi, waxaana ay tidhi arrintan waxba kama ogi, aniguna shakhsi ahaan waxa uu ii sheegay ma jiro, mana ahaba inuu ii sheego cabashada noocan isaga oo sharciga iyo nidaamka raacaya xubnaha dowladda ay qusayso inuu u gudbiyo ayay ahayd. sidaa darteed arrintan waxba kama ogi, arrimaha noocan ahna ma aha arrin guddiga fulinta loo soo bandhigo, aniga waxba kama ogi arrintan. sidoo kale waxaana la hadlay Master Saadaad, madaxa arrimaha isgaadhsiinta ee xafiiska xarunta dhexe ee EPRDF, wuxuuna yidhi warbixinta madaxweyne Cabdi waan dhegaystay. mudane Cabdi shirarka wax cabasho uu si rasmi uga jeediyey ma laha, arrintan waxba kama ogin. madaxda sare ee dowladda inuu cabashadiisa gaadhsiiyey way dhici kartaa ka xafiis ahaan, laakiin arrintan waxba kama ogin. Mustafa Cumar oo ah aqoon-yahan u dhashay deegaanka una dhaqdhaqaaqa xuquuqda dadka ayaa BBC sidoo kale uga warramay waxa isaga la tahay eedayntan ka soo baxday madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar, waxaana uu yidhi midda koowaad waxa uu doonayaa inuu xilka sii hayo uuna ka mid noqdo isbeddelka siyaasadeed ee cusub. madaxii hore ee sirdoonka iyo shakhsiyaadka kale ee sirtooda oo aan bannaanka soo dhigo kalsoonida laygu qaba ayaa badanaysa ayuu isleeyahay. midda labaadna waxa ay tahay Master Katajow inuu Cabdi uu xilka ka qaado ayuu marar badan isku dayay, marka arrintan wuxuu u sameynayay waxaa dhici karta inay aarsi ka tahay. Master Katajow Azave ayaa waxaa xilka ka qaaday ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed, waxaana lagu beddelay mas-uul kale. kama uusan jawaabin shakhsiyan eedeymaha uu madaxweynuhu u jeediyey. Faad Axmed Kaariye, Bulsha TV, Hargeysa.